Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa booqasho rasmi ah iyo soo dhaweyn heerkeedu sarreeyo loogu sameeyay Aqalka Cad ee Mareykanka. Mareykanka ayaa sheegay in Kenya u doortay inay noqoto isbahaysi dhow oo ka baxsan midka NATO. Tan ayaa Kenya ka caawin doonta inay hesho maalgelin militari iyo mid dhaqaale. Mareykanka oo saldhigyo militari ku lahaa galaangal xooggan Waqooyiga Afrika ayaa waayadii dambe kala kulmayay culays halkaas, isaga oo wadamada qaar ciidamadiisa lagu qasbay inay isaga baxaan sida Niger, halkaas oo ay galaangal xooggan ku yeesheen wadanka Ruushka oo uu Mareykanku kala dhexeeyo tartan adag oo ku saabsan adduunka, gaar ahaan hadda midda ka socda Afrika. Sidoo kale, 20kii sano ee ina dhaafay, Mareykanku waxa uu tartan ganacsi oo adag kala kulmayay China oo maalgelin xooggan ku sameeyay wadamada Afrika, isaga oo wadamo badan ku qarqiyay deyman xad dhaaf ah isagoo u sameynayay dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha. Mareykanka ayaa sheegay in Kenya ku doorteen inay tahay wadan xasiloon oo dimuqraadi ah, xilli wadamo badan oo Afrika ah siyaasadooda ama dimuqraadiyaddoodu aysan ahayn mid fadhisa oo isbedbedesha. Madaxweynaha Mareykanka Biden ayaa la filayaa inuu Koongareeska u gudbiyo heshiiskan ay wada galeen Kenya iyo Mareykanka muddo 30 maalmood gudahood ah.